axmed afdhuub kaynaan waa 50 sano jir in ka badan 30 sano ayuu ku taamayaa inuu helo gabar baariyad ah oo guursado maadaama ay hablo badan ay ku yaseen sida uu ilaahay ka dhigay sidaas oo ay tahana waxa uu la daalaadhacayaa xaalado nololeed oo isbiirsaday dhabarka ayuu ku xamaartaa waa nin leh mucjisooyin u gaar ah maxaa sidaan u galay axmed kaynaan dareenkiisa raganimo waa sidee muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa xogo badan oo ku gidaaman 50 jirkan la moodo 5 jirka hase ahaatee inta aanun guda gelin muuqaalkan oo dhammaystiran daawada waxaan si naxariis leh kaaga dalbanayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu u gaaro walaalo fara badan oo muuqaalkani uu u gaaro una sheer garay saaxiibada qiimaha leh ee Facebook kugu weheliyay si aynu u helno saaxiibo u qalbi furan sida adiga oo kale qaybta hoosena ugu soo ducay in Axmed uu Ilaahay u sahlo gabar baariyad ah maadaama isaga oo 50 sano jir ah uu doonayo in uu Ilaahay siiyo gabar baariyad ah oo uu guursado xilli uusan weligiis guursan 50 sano jirkan u muuqaalka eeg wiil yar oo saqiir ah qaybta hoosena waad ugu ducayn kartaa in Ilaahay uu markaasi caafimaad taam ah siiyo maskiinka noloshu ciishay waadna ku mahadsantahay daawade la jahanqaadkaaga aniga waxa waaye in ka badan 30 sano ayaa niyadeyda ugu jirtay inaan reer yeesho hase ahaatee dhaqaalo iyo tabar kale ay diiday anigana raganimo ima diidine waxaa ii diiday dhaqaalo xumo iyo duruufa ii diiday iyo gaadiid la'aan kan waa Axmed Kaynaan waxaa hooy u ah gurigan ka sameeysan cooshadaha kuwaas aan u bagac dhigi karin kuleelka cadceeda iyo qabowga xilliga habeenkii dhacaya waxa uu la nool yahay xanuuno sababay in dhammaan lugihiisa ay yaryaraadaan waana mid ku qasabtay inuu dhabarka ku socdo Kaynaan waxa isaga oo jira da'da 3 sano ku dhacay xanuun markaasi lagu saadaaliyay in uu yahay xanuunka dabeesha taasi oo markii dambe keentay in jirkiisa oo idil uu sii dhamaado loona moodo ilma yar marka uu kor ka muuqdo waxa uu ku nool yahay xaafadda Tuulo Gaban ee magaalada Guriceel qoys danyar ah ayuu ka soo jeedaa Kaynaan sidoo kalena dariskiisa ayaa ku caawiya waxa uu cuno maadaama uusan haysan hoy fiican iyo cunno markaasi kaafisa hooyo aniga raganimo hadda gooniga martayna laakiin inta u badan iga hortaagan waa dhaqaalo hadii lagu dhiso waxa waxaa laga yaabaa in wax badan oo aan dadku ogaa karin ay soo bixi lahayn sidaba Soomaalida waa ku maamaadaa laabto run lixaad kuna been marka hadii qofka lixaadkii iska gaabiyo ama dhaqaalihii iska gaabiyana dadku waxay xoogaa u arkaan qof mana noloshiisa nololba aan awoodi karin bana ama aan nolol la wadaagi karin bana waa jeclaa laakiin sabana waa jeclaa marka inaan mustaqbal reer iyo wax marka aniga noloshayda bedel xoogaa ii bedela waa jeclaa haddii aan helayo marka sheegna nolosha qoyska aniga marka sheegna waa iska tabayarta waa dad iska reer duura waa dad marka iska hantiyar waa dad iska saboolama Axmed Afdhuub Kaynaan kali ayuu ku yahay dunidan quruxda badan oo wax caruur ah ma uusan dhalin sabab la xiriirta in uusan weligiis guursan waxa uuna inoo sheegay in haweenkii ay ku naceen gaabnimadiisa ama dhabarka uu ku xamaaranayo dhowr jeerna uu haasaawo la sameeyay gabdho Soomaaliyeed balse ay u sheegeen in uusan u qalmin waa kan Axmed oo iiga waramaya waxa uu dareemo marka ay hablaha u sheegaan in aysan u qalmin isagoo sidoo kalena bulshada Soomaaliyeed ka dalbaday in ay soo caawiyaan wixii walka aniga iga maqan asii ummadda walka ay haysato anigu dareema marka walka yeelna wax badan ilaahay ku qabto waa is iraahdaa walka yeelna hadana ama cod xaqiisa ama gaadiid aan ku socdo xaqiisa labadaba waa dareema walka haba yaraatee hadda cunugna meel iyo ma joogo oo reexma xila kale hadda reexma aab iyo ma joogin hooyana iga sii liidataa waxaan ka codsanayaa walka yeelna inay igu saacidaan walka yeelna gaadiid aan ku socdo igu saacidaan dhaqaale igu saacidaan dad igu saacidaan caafimaad igu saacidaan ehelnimo igu saacidaan muslimnimo igu saacidaan inta waa ka codsanaa lambarkaygu waa 8 lambar 8 balka 48 97 eber 8 marka ku celi waa 8 48 97 eber 8 waayahay maxaad filaysaa wixii ilaahay baa horta ilaahay baa wax laga wada laakiin qayr baan aan filanayaa waa ka ilaahay kalsoonidiisa aan filanayaa